Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan Soomaaliya meel walba oo dunida daafeeda ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee qisadii murugada badneed ee la magac baxday Kala war la wiilkan iyo hooyadii. Waxa ay soo abbaartay halkii loogu sheegay guriga wiilkeedu degnaa, iyadoo aad ugu faraxsan ayay soo garaacday albaabkii hore ee guriga. Waxaa ka furay carruurtii uu dhalay. Aad ayay ugu farxday aragtida carruurtii uu wiilkeedu dhalay, balse nasiib xumo carruurtii ayaa dib u carartay markii ay arkeen islaanta aanay garanayn ee shala. Carruurtii intii waaweyneydna waa ay ku qosleen, halkii kuwa yaryaraana ay oohin qabsadeen. Sawaxanka iyo oohinta carruurta kadib ayaa waxaa albaabka soo istaagay wiilkeedii oo aad ula yaaban waxa carruurtiisii ku dhacay, balse markii uu arkay muuqaalka hooyadii oo aan muddo dhowr sano arag, ayuu aad isku beddelay wejigiisii. Isagoo codadhaha ku dheehan tahay kula hadlaya hooyadii ayuu wuxuu ku yidhi, ma waxaad u timid inaad carruurta iga cabsi geliso oo aad farxadda gurigayga dumiso? Hore ayaad farxaddaydii u soo baabi'isay ee fadlan iskaga tag gurigayga, kana fogow nolosheeda iyo tan familkeygaba. Hooyadii oo aad ula yaaban erayadii uu wiilkeedii kula hadlay, sidoo kalena ku faraxsan aragtida inankeeda iyo carruurtiisii oo aanay muddo arag, ayaa ugu jawaabtay, iga raali noqo wiilkaygiiow, waxaa dhici karta inaan guri khaldan albaabkiisii soo garaacay. Muddo kadib ayaa wiilkii waxaa soo gaadhay warqad fariin ah oo ugu timid iskuulku dhigan jiray wakhtiguu yaraa. Isagoo aad isu weydiinaya waxa ku qornaan doona ayuu warqaddii furay, mise waxaa ku qoran fariin qoraaleed la leeyahay kaalay sida ugu dhaqsaha badan iskuulkii aad dhigan jirtay yaraantaadii. Markii uu iskuulkii tegay ayaa loo sheegay in looga baahan yahay guriga hooyadii ku nooleed. Judiba waxa uu tegay guriga ay hooyadii ku dhashay. Nasiib xumo markii uu tegay ayuu la kulmay albaabkii gurigoodii xidhan. Waxa uu garaacay, balse wax jawaab ah ma uusan helin. Cidna kama furin albaabka. Isagoo amkaagsan oo hortaagan gurigii ayaa jaarkii ku soo baxeen una sheegay in hooyadii ay geeriyootay, balse intii sakaraadkay ee aanay geeriyoon ka hor ay uga tagtay warqad qoraal ah oo ay ku tiri u dhiiba dardaaranka wiilkaygii. Warqaddii ayuu furay isagoo aad u murugaysan. Waxa uu gudagalay akhrinta warqadda, waxaana ay u dhignayd sidan: wiilkaygiiow, iftiinkii indhahaygow, kaan dunida ugu jeclaawo, aad ayaan ugu xumahay sidaan nolosha kuugu ceebeeyey ee aan farxaddaada cidhiidhiga iyo diiqada u geliyey. Hooyo, waxaan kaa codsanayaa cafis. Waan xasuustay laga yaabaa marka aad warqaddaas akhrinayso in aan dhintay. Hooyo, waxa aan kuu rajaynayaa inaad adduunka farxad ku noolaato. Ogow inaan adiga oo aad u da'yar aad gashay shil baabuur, kaasi oo sababay inaad weydo mid ka mid ah indhahaagii, kadibna aan dalbaday in la iga saaro mid ka mid ah indhahaygii si adiga lagugu geliyo oo aad nolosha ula kowsato. Adigoo laxaadkaaga taam yahay, waxna uga baratid carruurtana aanay kugu cayin marka aad iskuulka joogto. Hooyo, waxaan aad ugu faraxsanahay guushii iyo horumarka aad gaadhay waxbarashadaadii kadib dhimashadii aabbaha iyo noloshii dhibka iyo rafaadka badneyd ee aan kugu soo koriyey. Hooyo, if iyo aakhiraba ku noolow farxad iyo rayreen. Markii uu warqaddii akhriyey ayaa waxaa mar qudha ku dhacay isbeddel, waxaana wejigiisii qarisay ilin ama ilmo. Waxa uu galay fikir iyo xasuus dheer oo ku wajahan marxaladdii dhibka badneyd ee hooyadii ku soo korisay, iyo sida foosha xumeyd ee ugu falcelin jiray, iyo siduu u necbaa muuqaalka iyo nolosha hooyadii. Si kastaba ha u fikiro, wax ku qaadasho dambe wax u tari mayso. Hooyadiina maanta waa ay dhimatay. Hooyo naxariis badana oo waxba uma qaban karo waqti xaadirkan, waxaana uu ku dhammaystay noloshiisii warwar iyo murugo qalbigiisii aad saameyn ugu yeelatay. Walaal, hadduu muuqaalkan ku soo gaaray, sii sheer garee oo la wadaag asxaabtaada. Janaalkeenana subscribe saar, gambaleelkana furo si uu muuqaal walba kuu soo gaaro. Aad iyo aad ay u mahadsan tahay.